السلام عليكم qaybta waxaan rabaa inaan uga hadlo narcissistiga iyo noocyadiisa kala duwan ay u kala baxaan. Number 1 waxaa jira overt narcissistic waxa la yiraahdo ama grandiose waxa waaye noocan waxa waaye waa nooc af dheer ah oo ishag oo showista ah oo asaga mar walba dadka iska dhiga inuu fiican yahay asaga qofkii oo xiriirka kala dhaxeeynin inaag bay noqon kartaa uu yahay inuu dulminayo ama asaga in la dulminayo uu iska dhigaa wuu ooynayaa wuu cabanayaa wuu cod dheer yahay meel walba uu kaaga cabo marka isdagaashaan guriga isku soo dagaashaan in private in public wuxuu iska dhigaa asaga in la dulminayo ama muuqaal ahaan loo dulminayo dhaqaale ahaan loo dulminayo emotional ahaan loo dulminayo asaga victim iska dhigaa wuu ooynayaa qofkii wuxuu ka dhigaa asaga dhibanaha ahaa wuxuu ka dhigaa asaga in wax dhibayo ama dulminayo aad buu u cod dheer yahay meel walba ku cabanaya meel walba kaaga sheegaya meel walba u xumaantaada ku faafinaya waa narcissistic xun waa nooc xun waay meel walba haduu tago asaga waxa waaye waa ceeb ma laha ceebka saliim waa asaga waa midka mar walba dulmiga iyo dhibka iyo wax walba uu ku dhacayo asagana qofkii guriga uu joogan uu yahay qof asaga dhib sameynayo mafahmte soo marka waa qof mar walba cabanayo oo mar walba sheeganayo waa kow qofka labaad waxaa waaye qof aamusan oo asaga waxay ka siman yihiin in marka hore adiga lagu soo xirogeliyo marka hore maskaxda laga qabso kadibna tartiib dantii laga gaaro qofkan aamusan oo covertka ah waxaa weeye asaga silent treatment buu yaqaanaa iyo avoidance in markii dantiisa uu gaaro adiga meel ku saaro inuu silent treatment sameeyo uu ka aamuso oo mar walbo adigii aad raadinaysid uu sii fogaado uu sii cararo avoidance sameeyo uu kula hadli waayo uu block ku saaro uu ku block gareynayaa asaga ma hadlayo waa amisaya waxaa waaye shib wax walba waxaa waaye asaga avoid gareynayo uu cararaya markii la isqabto la isdagaalo uu cararayaa block buu ku saarayaa inuu kula hadlo ma rabo uu ka aamusu kugu dilaya asaga silent killer way silent treatment uu sameynaya si adigu uu kuu dilo oo kuu dhaawaco because wuxuu ogyahay meel fog inuu ku gaarsiiyey ooda ka maarmin oo mar walba u baahan tahay soo aamusu kugu dilaya ma hadlayo ma cabanayo markii la isku yimaadana wuxuu leeyahay aniga waa cafiye qofkaas waxba uma haysto waa kaas caadi baan ah laakiin adiga wax kala dhaxeeyeen waa aamusaya si kasta hadaa u hadashid si kasta uga cabatid si kasta wax walba u sheegtid oo dhibaatadiisa uga hadashid ma soo jawaabayo ma isdifaacayo oo ma dhahayo aniga waxaas ma sameyna ma dhahayo wuxuu sameynaya wuu sii socona wuu sii cararaya wuu avoidance uu sameynaya silent treatment buu galaya wuu ku block gareynaya adiga warkaada ma rabo qof kale ku hadlayo warkiisa ma rabo cid ula hadlayo ma jiro wuu aamusaya then you wonder adiga wixii kugu soo noqona xadlada waa run qofkan adaa ka gardaran qofkan oona kuu jawaabaynin kula hadlaynin kula doodaynin kuu buuqaynin cabanaynin oo dhehaynin oo isdifaacaynin wuu saxan yahay adaa khaldan dan adaa is eedeynaysa adigii baa qofkii raadinaya oo dhibanaha number 3 waxaa waaye qaybtan waa qayb halis ah oo qofka narcissistic noocan wuxuu sameeyaa waa qof aad u cagajuleys badan oo threatka iyo inuu adiga mar walba halis ku gelinayo oo aad u sameeya wuu ku cabsi geliyaa wuu ku hanjabayaa wuu ku dilayaa xataa wuu ku gacan qaadayaa wuu buuqayaa cabsi fara badan buu leeyahay waxyar haddii lagu sameeyo wuu argoostaa qofkii wax kala dhexeeyaan qofkaas ama xiriir kala dhexeeya iyadana waxaa waaye waa halis waa qayb halis fara badan oo kuwa dadka dila ay u badan yihiin weeye waxaa sidoo kale jirto qayb kale oo ayagana narcissistic ah oo waxay sameeyaan in bulshadii ay iska gadaan oo ay sadaqo fara badan baxsadaan hadday lacag haystaan oo meelaha wax lagu bixinayo geeyaan si ay dadkii u kasbadaan hadhowna loo dhaho hebel wuu fiican yahay waa sadaqo badan yahay waa naxariis badan yahay loo yiraahdo haddii la ammaani waayana dadka way abuse gareeyaan
ama bulsho ahaan si group ahaan ama koox ha u abuse gareeyaan ama shaqsiyan ha u abuse gareeyaan mar walba wixii ficilka ay sameeyaan waxay ku raadinayaan in validation ay ku helaan ayaga lagu amaano ama ayaga lagu bombooniyo haddii la sameeyo waa in abuse inay sameeyaan sidoo kale waxaa jirta kuwo qayb iyagana jirkooda ku mashquulsan yihiin inay isqurxiyaan inay dadka kale ka duwanaadaan inay waxyaabo fara badan isku sameeyaan ayagana hadhowdii haddii lagu ammaani waayo ama lagu bombooni waayona abusing ay sameeyaan especially niman iyo naagba waxay sameeyaan sexual abuse ay sameeyaan oo ah in videoyaal muuqaalo galma iyo waxaas intay sameeyaan ay dadka ku abuse gareeyaan hadhowdiina waa aragtan iyagana waxaa kaloo iyadana jirto kuwo kale oo iyagana waxay sameeyaan in aqoontooda ayay waxay aada ugu mashquulaan in ay aqoon ahaan horumariyaan wax badan oo iisheeg cilmiga iyo aqoonta waxaas ku mashquulaan hadhowdiina dadkii kaleo dhan waxay u arkaan dad jaahiliin ah oo stupid ah oo ignorant ah waxayna sameeyaan qofku markaas uu la nool yahay wuxuu iska dhigaa inuu ka sareeyo oo superior yahay maadaama isaga wax bartay halkaas oo ayuuna qofka ku abuse gareynayaa isagoo aaminsan in qofkan kale uu yahay qof stupid ah oo ignorant ah oo waxba la qaybsan karin oo waxba kala dhexeyn karin haddii kala dhexeysana isaga ka hooseeyo ka liito oona isku caqli ahayn maamta soo marka qaybaha kala duwan ee narcissistiga way fara badan yihiin intaas aan kusoo koobayaa mar walbana waa muhiim qofka ala macaamilaysa ama wax kala dhexeen ama naftaada ku aaminaysa waa inaad taqaanaa waa inaad iska hubisaa waa inaad aragtaa calaamadaha ama red flagska oo aad mar walbaba aadan dhayalsanin waxyaabaha aad arkaysid qofkan calaamadaha aad ku arkaysid waxbay kuu sheegaan waa inaad baartaa waa inaad aqoon dheeraada raadisaa si aadan hadhowdii aadan victim u noqon because qofka markii abuse lagu sameeyo dulmi ama la abuse gareeyo saameyn maskaxiyan bay yeelanaysaa depressionada wax laga qaado waaye hadhowdiina mental health issue isku bedelaysaa adigii baa qofkaas dhibaatooyinka uu kuu geysanayay la xanuunsanayo oo la dhibaatoonayo oo heer waxaa gaaraysaa in waxyaabo badan oo saameyna oo adiga shakhsiyadaada iyo naftaada halis ku ah inay kusoo gaarto marka next video waxaa ka hadli doonaa saameynta ay leedahay narcissismka.